الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا ليال وحا أينو كجرني دروس تاني تحانها أهيد أينو كجهد ليني دروس رمضانية، وحا أينو سوغارني درسيني أفراد كميدا دروس تاسي، waxa aynu horay u soo ogaanay fadaaisha ay iska leedahay bisha barakaysan ee Ramadaan. waxa aynu horay u niri waxa aynu ogaan doonaa ahkaamta iyo aadaabta la isaga baahan yahay bishan barakaysan ee Ramadaan gudaheeda. soomka waxa aynu ogaanay fadiilo aad u fara badan oo la koobi karin inuu iska leeyahay, balse shayga fadliga aadka u badan leh haddii sharciga islaamka uusan waafaqin oo qofkii wax badan ay ka halaabaan, taasi ayaa aad u dhibaato badan. ruuxa muslimka waxa looga baahan yahay soomkiisu waa inuu waafaqo kitaabka Alle iyo sunnada nabiyullaahi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka calayh. soomkuna ma noqonayo soom saxiixa haddii aan la ogaanin ahkaamta soomku uu iska leeyahay. sidaa awgeed ayaan waxaan gudagelaynaa ahkaamta soomku uu iska leeyahay. soomkaaga ayaa waxa loo baahan yahay inuu ahaado soom waafaqsan shariicada islaamka. soomka culimada islaamku waxay u sameeyeen luqa iyo istilaax iyo xugum iyo aqsaam iyo waxyaabo noocaas ay culimada fuqahada u sameynayaan. soomka luqa ahaan waxa la yiraahdaa al-imsaak, waa qofku inuu haasto, yacni qofku wuxuu ka haysan karaa hadduu hadalkii ka aamuso ama socodkii uu ka haysto ama cunidii iyo cabidi uu ka haysto, intuba waxa ay noqonaysaa soom bay noqonaysaa. maryama bintu cimraan, maryam waxa ay tiri innii nadartu lirraxmaani sawma. soomkaasi waxay u jeedaa yacni cid inaanan la hadlaynin, falan ukallima alyawma insiya, oo waxa ay ka soo need markaasi ma aysan ahayn raashinka iyo cabitaanka ma aysan ahayn, laakiin waxa ay ka soo need waxay ahaayeen kalaamka iyo dadka inay la hadasho. soom maxaa la yiraahdaa marka sharciga islaamka ama fuqahada islaamka? soom maxay u garanayaan? soom waxa ay u garanayaan waa qofku inuu haasto, uu ka joogo, uu ka afhaasto, uu iska daayo waxyaabaha wax afurinayo. waxyaabaha wax afurinaya kaliya ma aha cunida iyo cabida iyo shahwada kaliya ma aha, waxay noqonaysaa wax alla wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raadi uusan ka ahayn, qofku waa inuu ka joogsadaa, uu ka afeestaa. laga soo bilaabo duluucul fajri thaani, yacni fajarka thaaniga ah ee labaad dhalashadiisa laga soo bilaabo ilaa qoraxdu ay ka dhacaydo. soomkaasina waxa uu wataa niyo iyo shuruud ayuu wataa. niyadaas iyo shuruudaasi haddii la waayana soom ma noqonayo yiraahdeen culimada fuqahada. xukunka uu iska leeyahay marka soomku waa waajib, xukunkiisu waa waajib. waxa uu waajib ku yahay kitaabka Alle iyo sunnada nabiyullaahi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka calayh iyo ijmaaca ummadda muslimiinta ah ayuu waajib ku yahay. oo Allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala, yaa ayyuhalladhiina aamanuu kutiba calaykumus siyaam. waxaa la idinku waajib yeelay soom. kalimatu kutiba waxa ay ka mid tahay min siyaqil wujuub bay ka mid tahay. yacni culamada oo usuuliyiinta ama culamada usuulul fiqiga diraaseeyaan marka ay tirinayaan siyaqul wujuub yaa waxa ka mid ah kalimatu kutiba, waa la waajib yeelo waayo. sidoo kale Allah wuxuu yiri subxaanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. qofki gaaro oo xaadira bisha barakaysan ee Ramadaan ha soomo. marka soomku waa waajib. nabigu wuxuu yiri sallallahu wasallam wa baraka calayh, asagoo tilmaamayo soonku inuu ka mid yahay arkaanta islaamka. buniya al-islaamu calaa 5: shahaadati an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah wa iqaami salaati wa iitaa'i zakaati wa siyaami ramadaan. nabigu wuxuu yiri sallallahu wasallam wa baraka calayh, islaamku waxa uu ku dhisan yahay 5 tiir ayuu ku dhisan yahay. 5taasi tiir waxa ka mid noqonayo bisha barakaysan ee Ramadaan soomideeda. sidaa awgeed waxaan ogaanay Ramadaanku waajib inuu yahay. xadiidkii Dalxa ibn Ubaydillah
ورنا النبي وحيري صلى الله عليه وسلم نبا النبي محمد سؤالي أو سؤال ويديي مركابو يري يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي من الصيام وحديشك تا رسولك إلهيو وحال وحي الله دشيدا واجب كغدغاي صوم ككميدا مركابو النبي كيري عليه الصلاة والسلام شهر رمضان صوم كواجب ككغوا وبش رمضان إنا صومته صحابي قاس النبي وحا كيري صلى الله عليه وسلم هل علي غيره رمضان كا وحن هين ميا واجب غوا قال النبي وحو كيري مركا صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تضوع ميا وحكلو واجب كغوا مجران إلا تضوع إيا مركاسي سمفل إيا وناك إنا سميدا موياني هادبا مسلمين تو وحا أي كو إجماعين بشان بركيسان إي رمضان إن لا صوم واجب إني تهي صوم كنا أو كميديا هاي أركانت إسلامك وأن منكره كافر قفك صوم كديدي يراد صومك واجب معها وكافر مرتد عن الإسلام وروح كافرة أو دين تا إسلامك كبحي قفك يعني ديدو أما قفك فضوداستو أو نفتي سرادي قليو أو بشان بركيسان رمضان أنسومين علماء وحي يرادين وفاسق مرتكب للكبيرة وروح فاسقة أو ذنبي وين قلي أيون نقنايا صومك وحي يرادين علماء إسلامك وحا واجب لغا دغاي أو لواجب يالي سنة كي لباد تاريخ هجرية بشا شعبان أيضو لبا مريضو بشا شعبان أيضو لبا مريضو أيا واجب لغا دغاي مالين إسنينة سيدا أي يرادين علماء فوق هذا هذا بشا بركيسان رمضان يا وحى إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا إجماع أمدا يا وحى كؤغا أن بشا إلا صومه واجب إني تهي روح كسو مسلم أنا واجب أي كتاي صوم كمركا وحى الله قيبيا لبا يا الله قيبيا أو صومك وحى وقيب سمايا صوم ليراد فرض يا صوم ليراد تضوع لبا سي أي وقيب سمايا صوم كفرضك سدح يا الله قيبيا صوم كرمضان كا إيا صوم ككفارات كا إيا صوم كنذر كسدح ذا أيا وحي واجب الله قيبنا يا بشا بركيسان رمضان واجب يكون قريسا صوم الكفارات وحل يرادا ما يجب العلة قفك خلط وقلي يا إلهي سبحانه وتعالى وكو واجب يلا يا مركا أبو ليا انت صوم الموت إنا صومته يا واجب كقوة صوم كنذر كان وحل يرادا ما يجب بإيجاب الإنسان على نفسه يعني قفكو أسجى اسكو واجب يلا يو وحا أوليه سدا إيا سدا الله سبحانه وتعالى هدو إيالو وحا واجب قوة انت صوم الموت إنا صومه مركا صوم كواجب كواسدحو صيام رمضان إيا صوم الكفارات إيا صوم النذر بالله قيبنا يا انت أيو قيب سمايا مركا بعدما أينو أغاني صوم كواجب إنو يهي وحان اسويدينينا صوم كاسي بشا بركيسان رمضان سيلغو سوق كراه سيكو أغان كرنا صوم إنو إغو واجبي سيكو أغان كرا علماء فقهاء وحي ليهين صومكو وحا وكسقنانا يعني برؤية الهلال بش رمضان إلا أركو وليبا السقال إيا اللباتنك شعبان يا وحا لأركي بشي رمضان صومكو مركاسي واجب نقنايا روح أركي يا علماء خلاف بيكو ليهين لكن سيدا اللوب بدن ياهي هل روح دو أركو بشا بركيسان رمضان او يراهدو انيغا ايا بشي اركي waa lagu soomayaa in lagu soomana waa waajib culimada sidaasay u badan yihiin culimada shaafiiciyada qaar badan oo kamida waxay leeyihiin hatta la shardimaayo caadil inuu noqdo hatta la shardimaayo ayadoo ramadaanka loo degdegayo oo ramadaanka la tixgelinayo la qiimeynaya ruux faasiqa haduu iska yiraahdo bishii barakaysneed ee ramadaan aniga ayaa arkay waa lagu soomayaa culimo badan oo shaafiiciyada kamida ayaa qabo sida Zakariya al-Ansari rahimahullahu ta'ala sidaas ay qabaan bisha barakaysan ee ramadaan marka hadii la arko waajib ay noqonaysaa sidoo kale shacbaankiya waxa uu dhamaaday 30 baa kaamil noqotay 30 maalmood bisha shacbaan markay dhamaato soomku wuu waajibayaa marka nabiga alayhi salatu wasalaam hadith uu soo saaray Abu Daawud iyo Hakim iyo Ibn Hibban lagana warinaya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wuxuu leeyahay Abdullah ibn Umar tara an-nasu al-hilal dadki waxa ay istusiyeen
bishii barakeysneed ee ramadaan fa akhbartu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama annii ra'aytuh waxaan u sheegay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama anigu bishi inaan arkay fa saama wa amara annaasa bisiyaamih nabiga sala allahu calayhi wasalama wuu soomay waxa uuna amray dadku inay soomaan ayuu nabigu amray sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas waxaan ka qaadanaynaa oo cabdullaahi ibnu cumar radiallahu canhuma dadkiyaa bishi istuseeno bishi baa la wada raadinayey aniga ayaa markaasi bishi helay markii aan arkana nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ku idhi annii ra'aytu nabiguna waa uu soomay sala allahu calayhi wasalam dhammaan muslimiintiina waa ay soomeen sidaa ayuu leeyahay cabdullaahi ibnu cumar xadiidkaasi waxa aynu ka ogaanay in haddaba hal qof hadduu yidhaahdo bishi aniga ayaa arkay in lagu soomayo sidaba nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu ugu soomay cabdullaahi ibnu cumar keligii oo bishi arkay xadiid kale waxaa jiro ibnu cabbaas oo nin acraabi ah nabiga uu yimida sala allahu calayhi wasalam uu markaa uu yidhi annii ra'aytu lhilaal bishi ayaan arka buu yidhi ninka acraabiga ah markaabuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam atashhadu an laa ilaaha ila allah ma qiraysa alla xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaahay keliya mooyaane acraabigii wuxuu yidhi nacam nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam atashhadu anna muxammadan rasuulullah qaala acraabigii wuxuu yidhi nacam haa nabi muxamedna rasuul ilaahay inuu yahay waan qirsanahay nabigu markaa wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaa bilaal adin fi nnaasi falyasuumuu qadaa dadka ogeysiiyoo biri ha soomeen sidaa ayuu ku yidhi nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasina waxa uuna tusinayaa hal shaahid in la aqbalayo ninka acraabiga ah nabiga sala allahu calayhi wasalama aragtidiisa nabiga ee saxaabadu ay ku soomeen culammada qaar baa waxay leeyihiin xadiidkani waxaa ku jiro waa daciifo waxaa ku jira nin la yidhaahdo samaak ibnu xarbi nin la yidhaahdo ayaa ku jiro inkastoo saduuq uu yahay waxay yidhaahdeen markuu cikrima uu ka warinaayo waa mudarib bay yidhaahdeen culammada muxadisiinta sidaa awgeed xadiidkan waxaa yacnii ku jiray yidhahdeen irsaalaa ku jiro waa mursalo yacnii waxaa dhexda ka maqan taabicigii baa ka maqan marka waa maadaama mursal uu yahay culammada qaar baa daciifinayo si kasta ha ahaato qofka hadduu yidhaahdo bishi anigaa arkay hal qof hadduu yidhaahdo aragtidiisa waa lagu soomayaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu leeyahay xadiid imaamu lbukhaari iyo muslim ay soo saarayaan abi hurayrana uu warinaya radia allahu canhu suumuu liru'yatih wa aftiruu liru'yatih fain qumma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana 30 yowma nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalama waxaad ku soomtaan aragtida bisha waxa aadna soonka ku furtaan aragtida bisha fain qumma calaykum haddii la idinka daboolo oo markaasi daruur ay isxirtana faakmiluu ciddata shacbaana 30 yowma bisha shacbaan markaasi 30 dhammaystira buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkani waxa uu si cad noo tusinayaa yacnii in lagu soomayo aragtida bisha in lagu soomayo laakiin aragtidu naqamaydo sidaan hore u sheegnay muslimiinta dhammaantood inay arkaan ee hal ruuxee muslimiinta ka mida hadduu yidhaahda bishi aniga ayaa arkay halkaa ruux aragtidiisa waa lagu soomayaa culammadu sidaa ayay qabaan nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiid uu warinayo cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhuma wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam imaamu lbukhaari iyo muslim baa xadiidkaasi soo saarayo laa tasuumuu xataa tarawu lhilaal ha soomina buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa bisha aad ka aragtaan walaa tuftiruu xataa taraw soonkana ha furina ilaa bishii shawaal aad ka aragtaan fa in qumma calaykum faqduruu lah haddii yacnii la idinka daboolana faqduruu lah culammadu waxay isku khilaafeen fuqahada faqduruu lah maxaa loo jeedaa cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhuma iyo yacnii muslimiin kale waxay ku fasireen waxaa loo jeedaa ha la cariiriyo haddii yacnii daruur ay markaasi bisha idinka daboosho ha la cariiriyo habeenkaasi waa ramadaan waxa ayna waajib ka dhigeen dadkaasi yowmu shaki in la soomo inay waajib tahay halka fuqahadu ay kaga badan yihiin fuqahada islaamka intooda badan ay leeyihiin waxaa loo jeedaa faqduruu lah riwaayadda kala fasiraydo fa akmiluu yacnii ciddata shacbaana 30 yowman baa loo jeedaa oo yacnii 30 maalmood ee shacbaan dhammaystira ayaa loo jeedaa sida ay fuqahadu u badan yihiin
markaabay leeyihiin maalinta lagu shakisan yahay oo shacbaan ugu dambaydo oo yacnii daruur iyo dabool u yimaado maanta soom miya mise soom ma aha maalintaasi in la soomo waa xaaraan bay fuqahadu u badan yihiinoo waxay u garanayaan yowmu shaki bay u garanayaan. marka yacnii soddonkii ayaa la dhammaystirayaa haddii daruur iyo yacnii bishii markaasi daruur ay naga xigsato oo hilaalu ramadaan aan arki weyno soddonka 30 shacbaan baan dhammaystiraynaa. ramadaankii markay daruur ay naga xigsatana waxaan dhammaystiraynaa bisha ramadaan ayaan 30 dhammaystiraynaa. marka culammadu sidaasay u badan yihiin maalinta shacbaan uu 30 yahay oo bishi miyaa bilatay mase ma bilan lagu shakisan yahana in la soomo ma bannaano. nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiid uu urinaya camaar ibnu yaasir yaa wuxuu leeyahay xadiidkaasi waxaas urinayoo soo saaray imaamu lbukhaari raximahu llahu tacaala isagaioo mucallaqa, laakiin xadiidka itisaal waxaa ku urinayo abu daawuud iyo nasaa'i tirmidi iyo ibnu maajah. maxay leeyihiin man saama alyawma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalcaasim. nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ruuxa soomo maalinta lagu shakisan yahay ramadaan miya mise ramadaan ma aha waxa uu ku caasiyey nabi muxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh. nabigu sidaasuu yidhi. marka maalinka yowmu shakiga ruuxi soomo nabi muxamed buu ku caasiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh. laakiin bishii aragtideeda haddii la helo oo ruux muslimiinta ka mida uu yidhaahdo bishii aniga ayaa arkay, aragtidiisa waa la qaadanayaa. culammada fuqahada waxay yidhaahdaan walaa yuctamadu calaa qowli ahli lxisaab fii dukhuuli shahri walaa fii khuruujihi. ma la cuskanayo dadka yacnii xisaabiyo kalandarada ama yacnii xidigaha xisaabiyo qowlkooda la cuskamaayo oo yacnii qoraalka samaynaya bisha waqtiga ay soo gasho iyo waqtiga ay baxaydo qowlkooda ma la qaadanayo. lianna annabiya sala allahu calayhi wasalama callaqa alxukma biru'ya. nabiga calayhi salaatu wasalaam xukunkan soomku inuu waajibaya ah waxa uu ku xihay aragti ayuu ku xihay laa bilxisaab. xisaab iyo kalandar nabigu ma uusan ku xihin sala allahu calayhi wasalama. marka kalandaradana lagu soomi maayo. dadka yacnii xidigaha fiiriye bisha waqtiga ay bilanaydo iyo waqtiga ay dhammaanayda ayaguna garanayana kuwaa hadalkooda iyo aqwaashooda lagu soomi maayo. waxa lagu soomaya waxay noqonaysaa aragtidaasi kaliya ayay noqonaysaa. aragtidaasi ruuxa waxaa dhici karayda miyiga joogo ama baadiyaha joogo inuu yacnii bishi uu arko. hadduusan arkin qof yacnii bishi arkana uusan u soo sheegin markaasi asaguna soomi maayo. ruuxa arka bisha ayay waajib ku noqonaysaa. sidaa awgeed culammada waxay leeyihiin waxa loo baahan yahay bisha shacbaan in laga soo bilaabo tirada. bisha shacbaan in aad loogu dadaalo. annagu maxaynu samaynaynaa bisha ramadaan kaliya ayaynu baarnaa. bisha shacbaan nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid abi hurayra uu warinayo imaamu tirmidi iyo xaakim daaru qudni iyo bayhaqina ay soo saareen. wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam axsuu hilaala shacbaana liramadaana. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii kooba bisha shacbaan ramadaan dartii u kooba oo tiradeeda xifdiya. maxaa loo jeedaa ay ijtahiduu fii ixsaa'ihi wa dabdih. bishaa inaad xifdisaan meeshii ay ka soo bilaabatay iyo halkii ay ku dhammaanaysay. taa ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam muslimiinta uu kala hadlayaa litakuunuu calaa basiira fii idraaki hilaali ramadaan. si yacnii bisha barakaysanee ramadaan aragtideeda si cad markaasi waxaad ogaanaysaan soddonkii shacbaan inuu dhammaaday, bishii waqtigii la arkaya waqtigani inay tahay. sidaa awgeed baa xisaabta waxaa laga soo bilaabayaa bisha shacbaan baa laga soo bilaabayaa. haddii qofka loo sheego bishii ramadaan xalay inay dhalatay asagii oon bishii helin xalay oo meel kasta ka waayayee raadiyey, qof bishii arkana uusan arkine caawa uu jiifto asagiioo u malaynayo biri shacbaan inay tahay oo maalintii ugu dambaydee shacbaan ay tahay, yaa qof baa wuxuu yidhi bishi anigaa arkay. qof uu ku kalsoon yahay yaa ama la soo xiriirayoo soo wacay ama foolka fool buu u arkayoo waxa uu ku yidhi bishi aniga ayaa arkay. qofkaasi muxuu samaynayaa bayinadaasi haddii ay caddaato bacda duluuci alfajri, yacnii habeen ma aha waa maalin ama maalintii gudaheeda ayuu ogaaday. culammadu waxay leeyihiin wajaba alimsaak, yacnii inuu ka heesto waxyaabaha soonka buriyo ayaa waajib ku ah. maxaa yeelay maalintani waxa ay caddaatay maalin ramadaan inay tahay.
waxa waajib ku ah maalinkaas inuu qiimeeyo uu ixtiraamo markaasina uu soo qadeeyo maalinkaasi waajib bay ku noqonaysaa culamada fuqahadu sidaa ayay leeyihiin marka sidaa darteed yaa waxaan isu dardaarmaynaa soomkeennu si uu u noqdo soom saxiixa waa inaan ku dadaalnaa aragtida bisha ramadaan ee dad badan oo yacni dadka ka mid a muslimiinta ka mid a waxaa looga baahan yahay inay aad u cinaayeeyaan oo bishi ayagoon arkin aysan dhihin waan aragnay sida mararka qaarba dhacdo waxaa loo baahan yahay in ruuxa asaga ayaa aakhiro la weydiinayaa ruuxi yidhaahda bishi ayaan arkay asaga yoon arkin asaga ayaa aakhiro la weydiinayaa laakiin shareecadeenna islaamku waxa ay qabtaa ruux muwaxid ah oo ilaahay kali yeelayo oo muslima oo nebi moxamed nebinimadiisa qirsan oo caadil ah hadduu yidhaahda bishii aniga ayaa arkay dadkuna waa ay ku soomayaan waa ayna ku afurayaan marka darsigeennii aynu ugu talagalnay duruusteennii musalsalka ahayd ee bisha barakaysan ee ramadaan halkaasi ayaynu ku simanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh